إسلام كله كفرنا كما قاتوا حكمه إلى كمرة ليها السيطان له مقرين إسلام كله كفرنا كما قاتوا حكمه إلى كمرة ليها السيطان له مقرين الله نبيا إسكالي أبيات وذكريو ودي مشي مالوري تلكيوك إليا الله نبيا إسكالي أبيات وذكريو ودي مشي مالوري تلكيوك إليا أستاقيم وذا حلو تذكاري وذا أفلحي أولي كعكبا كبحي شعبي قنوي وأرحانا أستاقي وذا حلو تذكاري وذا أفلحي أولي كعكبا كبحي شعبي قنوي وأرحانا أقول يا لبو يرتيو إني قاديو فنان من فينو يدير لي وما تيدي وحقرو بسم الله الرحمن الرحيم داوديال كسو دواada qoraxay media xaruntiisa dalka Sweden halkan waxaan idinku haynaa waraysi gaar ah oo la yeelanayna madaxda jabhadda wadaniga xoreynta Ogaadeniya mudane Cabdiraxmaan Sheekh Mahdi Maadi oo ah hogaanka arrimaha dibadda iyo mudane Generaal Cabdullaahi Mukhtaar kusoo dhawaada qoraxay media mudanayaan su-aasha koowaad waxaan weydiinayaa mudane Cabdullaahi Mukhtaar baryahan waxaa ka socday dalka Sweden magaalada Stockholm shir muhiim ah oo aad ku jirteen toddobaadkan oo wax badan aad kaga hadlaysiin shirkaas muxuu kaga duwan yahay shirarkii hore la oran karaa bismillaahi raxmaani raxiim marka ugu horeysa waxaan mahad u celinayaa qoraxay media oo runtii taariikh weyn ku leh halganka socda ee ummadda shacabka Soomaalida Ogaadeniya ay ugu jirto xaqiiqada xaqa ay ka tashi ummadaas dhammaan qoraxay wax weyn ka qabatay waa mahad baan u celinaynaa waxaan ku boorinaynaa inay dadaalkeeda sii wadaan intaas kadib su'aasha haddaan ku soo dhawaayo kal guddiga fulintu isugu yimid shir runtii socday maalmaha aad sheegtay waxayna ahayd ahmiyadda marxalad ka duwan marxaladii hore ayuu kusoo qiimeeyey kulanku sidaas darteed buu muhiim u ahaa marxaladdu waxaa weeye waxaad hor socotaan kulligiin inuu halganku galay marxaladda hore ee cusub oo nidaamka gumaysiga uu ku bilowday burbur gudihiisa ka dhaca isla markaana dulmiga maalmihiisa ay aada u soo kooban yihiin si marka halganka loogu duwo oo loogu helo jihayn hor leh oo la shanqaadi karta marxaladan adag iyo marxaladan cusub oo looga faa'iidaysto fursadaha jira iyo halisaha jira labadaba iyo laga maarmaan noqotay in guddiga fulinta isugu yimaado oo uu gorfeeyo geedi socodka halganka qiimeeyo falanqeeyo marxaladan hadda isla markaana uu dejiyo barnaamijyo hawleed oo ku aadan marxaladan waxaana dhihi karnaa hawshaas si fiican baa loo guulaystay ayaad baad u mahadsantahay Generaal baryahankada dawladda Itoobiya waxay saameyn siyaasadeed iyo mid ciidanba ku leedahay dalka Soomaaliya idinku ka oona la fahan waxaad kula jirtaan dagaal hubaysan dagaalkiina ma oran kartaan siyaasadda Soomaaliya Itoobiya ay gacmaha kula jirto caqabad ahaanba ku noqon kara wuxuu dib u geysan karaa bal warbixin koona iyadana naga sii su'aal muhiim ah runtii jamhuuriyadda Soomaaliya waa hiilka istiraatiijiga ay leedahay qadiyadda Ogaadeniya muddo sidii burburkii jamhuuriyadda Soomaalida ugu bilowday dagaalkii ahliga iyo burburkii ka dambeeyay waxay iska noqotay dantii Soomaaliyeed iyo danihii Soomaalidu kuwa ay hadheeyeen oo ay cayd geliyeen danaha dowladaha dariska danaha dowlado kale oo shisheeye dantii Soomaalidu waxay noqotay mid aad daciif ah qadiyadda Ogaadeniya waa qadiyad Soomaaliyeed ma aha qadiyad ka duwan waa qadiyad Soomaaliyeed shacabka Soomaalida u taal marka kolka shacabka Soomaaliyeed weli uusan xukuumad u haleelin maamul inuu unko oo sameeyo oo dibadda u ah qaran Soomaaliyeed madax bannaan kolba qadiyadda Soomaaliyeed meel kasta ay tan halganka Ogaadeniya tuko walbaba
waxay saameyn taban bay ku leedahay. cabdiraxmaan sheekh mahdi hogaanka arrimaha dibadda ee jabhadda wadaniga xoreynta Ogaadeniya kusoo dhawow Qoraxay Media si gaara iyo si guudba. maruu aad baan ku salaamayaa dhammaan bahda Qoraxayna waan salaamayaa kulley muxuu ahaa mudane Cabdullaahi baa ka sheekeeyey kaalinta Qoraxay ay leedahay iyo dadaalka ay sameynayaan dhammaan marka aad baan u hambaliyaynaynaa inay dadaalka sii wadaan insha allahna Ogaadeniya xora maaragtay inay ka noqon doonaan hormuudyada maaragtay warbaahinta hay'adaha warbaahinta yaan rajaynaynaa waan salaamayaa dhammaan. waad mahadsantahay mudane toddobaadkan waxaad ku jirteen idinku ah guddida fulinta shir muhiim ah oo ka socday dalka Sweden magaalada Stockholm ujeedada shirkaas maxaa ugu weyn oo ah bal adiguna su'aasha ku soo dhawow mar hore Cabdullaahi Muxtaar weydiiyey. kulley waa sida uu mudane Cabdullaahi u sheegay marxaladda geeska Afrika si degdeg ah ay isu bedelaysaa guud ahaan gaar ahaanna Ogaadeniya ama ha noqoto wadciga Itoobiya ay ku jirto kacdoono badan oo shacbiga ka taagan laga bilaabo ilaa Benishaangul xadka Suudaan ilaa Soomaalida Ogaadeniya oo ay hadda u hor leedahay uguna weynta kacdoonka hadda dhulka Oromada ka socda sidoo kale Soomaaliya isbedelo badan baa ka dhacaya maamul cusub baa ka dhismay waa dhaweyto maamulkii waqtigiisa waa soo dhamaanaya marka waxaa la rajaynayaa haddana maaragtay dowlad cusub oo maaragtay tii hore ka yara guda ballaaran ay abuuranto isla markaana Itoobiya يعني جد رجد أوصي فولة سدي وهنا الله يد ومدة الصومالية قارن جمهورية الصومالية ومركا سكوب بلارنا يسمى جي محاها لوكي صومالي ذو إذن إن تاسو سيد عبد الله وشيء صلدقوا يوتهاي عبسيدا هيك قبت محاها يعني ومدة الصومالية إني إساكتو أي سو عشت محاها قرن مذي تاسو كينيس يعني أي مسنت إني كينيس إني حوجي يستو كارك ومدة الصومالية حقوقه يكون رادنيا إن مركا intaa waxaa dheer halkaa kuma eka Eritrea ka taagan tahay waxaa weeyaan haddaad fiiriso muxuu ahaa Kenya way ka taagan tahay Uganda Suudaanta Koonfureed Suudaan dhammaan geeska Afrika waxaad moodaa inuu ka jiro xasarad guud oo saameyn ku leh yacni qadiyadeena toos ugu leh intaasoo kale ah markay sii ballaarata hataa adduunkii oo dhaqaalihii adduunka wax iska bedeleen siyaasaddu wax iska bedeleen bariga dhexe oo aad la socotaan dagaalada ka socda ilaa hadda Yemen wax ka dhacay marka jawigii geeska Afrika oo si aad isu bedelaya yaa waxay laga maarmaan noqotay in ururku muxuu ahaa uu arrimahaas darso sida saameynta ugu yeelan kara qadiyadda fursadaha laga heli kara khasaaraha ka iman kara marka shirkan shir muhiim u ahaa oo yacni taariikhi ah oo muhiimadiisu ahayd in arrimaha laga baaraandego kadibna tallaabooyin qadiyaddaas muxuu ahaa yani wax u tareeya shacabka Soomaalida Ogaadeniya iyo guud ahaan shacabka Soomaaliyeed iyo kuwa geeska Afrikaba taas ay ahayd in lagu gorfeeyo marxaladahaas intii go'aamo fiican oo ka soo baxan dhaxalgala mudane waxaan ku weydiinayaa baryahan dambe waxaa jira isbahaysi cusub oo ku midoobay shan urur ay ka mid tahay ururka ONLF isbahaysiga maxaa u qabsoomay xilligii ay samaysmeen ilaa hadda isbahaysiga saad la socotay waxaa la asaasay bishii Oktoobar waxaana asaasay shan urur oo muhiim ka ah oo shucuubta maamulka dulmiga Itoobiya ku hoos nool Benishaangul oo xadka Suudaan saaran Gambeelo xadka Uganda saaran iyo koonfurta Suudaan Sidaama oo bartamaha Itoobiya ah Oromo oo xudunta Itoobiya ah iyo Soomaalida Ogaadeniya oo bariga muxuu ahaa qowmiyadahaas ka jira oo runtii quwad weyn oo muhiim ka ah geeska Afrika marka isu imaatinkooda keligiiba wuxuu ahaa fariin weyn oo shacabka Itoobiya guud ahaan ka geeska Afrika ma loo direeyay in la midoobi karo dulmi loo midoobi karo isbedel taariikhina la sameyn karo dulbana mirihiisa ka soo baxayaan dhiiranaanta shucuubta maanta Itoobiya arkaysa ka soo baxaysa waxaa sal u ah yani dareenka ay dareemeen dadkii inay midoobeen oo nidaamka dulmiga meesha ka socda ay u midoobeen si maaragtay isaga celiyaan waa la dhamaystiray shuruucdii baa hadda la dhamaystireeyay shir degdegana waa la qaban doonaa tallaabooyin siyaasi ahna waa la qaaday ama diblomaasi ah ama askari ah marka hataa shirka annagu aan qabsanaynay waxaa ka mid ahaa qodobadiisa sidii askariyan iyo siyaasiyan iyo muxuu ah shacbiyan baan la isugu diyaarin lahaa si looga faa'iideyn lahaa yani xoog dhab ah oo ka bedeli kara wadciga Itoobiya ka jira taariikhiyan iyo siyaasiyan dhinac walba marka wax weyn buu soo kordhinaya wuuna soo kordhiyay oo nufuudkii qadiyadeena kor buu qaaday shucuubtaas koonfureed kor u qaaday waliba hadda waxaan rajaynayaa in isbahaysiga la ballaariyo shucuubta kale oo Itoobiya ku nool aan ku soo biirino marka waa isbahaysi mug weyn leh runtii muhiimad weyn u leh ummadaas
mudane cabdiraxmaan sheekh mahdi maadi waxaa tahay hogaanka arrimaha dibadda ee jabhadda wadaniga xoreynta Ogaadeniya baryahan dambe dadkeena Soomaalida Ogaadeniya iyo dadku waxay isla dhex marayeen wadahadaladii baryahana waxaa gudi Ogaadeniya ka socday gudidii wadahadalka qayb ka mid ah oo wadankii mareysay wadahadaladaas xagee ku dambeeyeen maxaad xog naga siin kartaa wadahadaladaas in muddo ah way ilaa 2012 ilaa hadda wadahadaladu ma istaagin mar way joogsanayeen oo ay hakakad baa ku dhacay marna way hinqanayeen guud ahaan ururka oo NLF iyo shacabka Soomaalida Ogaadeniya mabda bay ka tahay xal nabadeed oo waara in laga gaaro qadiyadda Ogaadeniya iyo hardanka ka dhaxeeya geeska Afrika marka mabda'aas oo asaasiga anagu mar walba waan aaminsanahay nabad haddaan helaynana xaqeena ku helaynana wax wanaagsan weeye haddaan ku weynana waxaan ku qasbannahay inaan wadadii kale lagu raadin karo ku raadino marka wadiiqooyinka qadiyadeena xaqeena ku raadinayna ay ka mid tahay in nabad iyo maaragtay mar walba aan isku dayno intaad la socoto dowladda Kenya runtii oo kaalin weyn ka qaadatay sidii muxuu ahaa dowladda Itoobiya oo aan la raadin halka waar gacan uga geysan lahayd dadaal badan bay waday waxaa la socotaa in bishan muxuu ahaa bilowgeedii wafdigii adhaxaadinta Kenya inuu tagay Itoobiya isla markaana uu kormeer ku soo sameeyay Soomaalida dhulka Soomaalida Ogaadeniya deganayd runtii tallaabo positive oo horumar ah waana waxaan rajaynaynaa in wadahadalku uu waqti ku habboon iyo markii duruuftu ku habboon ay abuurantay inuu wadahadalka dib u bilowdo waan aaminsanahay xal silmi ah inay suuragal tahay hase yeeshee waxaa weeyaan waxa nabaday ku iman karto shacabka Soomaaliyeed ee meesha jooga dulanku boqolka sano haystay in xaqooda la siiyo marka waan rajaynaynaa adduunku waxaa weeyaan wadahadal gacanna waa lagu wada hadlay gacanna waxaa weeyaan waa diblomaasiyiin iyo siyaasiyiin iyo dagaal intaba waan wadaynaa haddii la yidhaahdo laakiin waa go-aan istiraatiiji ah waxaan door bidaynaa nabad iyo wadahadal in qadiyadda Ogaadeniya lagu xalliyo waxaana rajaynaynaa in maaragtay isku daygan dowladda Kenya wadda inuu guulaysto keligood maaha dowlado kaloo badan oo reer Yurub u badan iyo dowlado kaloo geeska Afrikaba waxaad moodaa inay danaynayaan marka waxaa laga yaabaa in maaragtay arrinta ayada ay culays soo saarto inta kaliya kuma ekaanayna wadahadalka Soomaalida Ogaadeniya Itoobiya kaliya ma noqonay dowladda hadda dhexe Itoobiya ma noqonaysa hataa waxaa annaga hamigeenu yahay in isbahaysiga laftiisa ururada kale isbahaysiga iyo shucuubta Itoobiya idil u noqdo wadahadal wax ka tara oo afgarad guud oo maaragtay Itoobiya la khuseeya halka uu ka soo baxo mushkiladaha taagan lagu xalliyo mudane Cabdullaahi Mukhtaar baan soo laabanaynaa baryahankeeda waxaa jiray shirkado shidaal oo ku sugan gudaha Ogaadeniya dowladda Itoobiyana waxay sheegtay baryahan inay soo saarayso shidaalka Ogaadeniya arrimaha maxaad kala socotaan naga siin kartaa arrimahaas waa wax iska qoran aad u mahadsan wax qoran ku qoran wax iska cad dowladda Itoobiya way doonaysaa saas way ku jirtaa way ku tala jirtaa shirkado badan bay u saxeexday qandaraas u saxeexday iyada oo kala tashan marna dadka deegaanka danahiisa marna kala tashan ayay waxay ku dhaqaaqaysaa kolba inay shirkad hor leh qandaraas siiso laba ab isku jirtaa hamiga ah inay soo saarto shidaalkaas iyadoo dulmiga ku haysa shacabka waa hamigeeda waayo resource kale Itoobiya ma leh resource-yada ay haysa kaliya waa bunkii aad garanaysaa yaraa iyo dulmiga wax ka dhashay marka rajada ay qabto waa rajo dowlad weyn oo isballaarinayso doonaysa inay dulmi ku noolaato shirkadaha u yaadhay gacan haysay shirkadahaasina waxaan horeyna u sheegnay baaq ku soo saaray hoggaanka arrimaha aan sheegnay in inta aan wali shacabka Ogaadeniya uusan helin xaqiisa shirkadaha isku dayay inay dalkaas ka soo saaraan iyo hamiga Itoobiya beenta u sheegayso way ku hangoobayaan waxaan ku leenahay shirkadahaas afbi waxa uu leenahay ka fiirsada aad uga fiirsada inaad iska maalgelisaan oo isku daydaan inaad ka faa'iideysataan dulmi lagama faa'iideysan karo dulmi haddii la isku dayo in dulmi laga faa'iideyna waxaa ka iman kara waxyaalo aan fiicnayn waxaan aad iyo aad ugu boorinaynaa shirkadaha inay danahooda aad uga fiirsadaan wuu jiraa dadaalkaasi dowladda Itoobiya isku dayayso mana aha wax cusub dowladihii horreena way isku dayeen kuwii ka horreeyay Ingiriiska isku dayay Haile Selassie isku dayay waa wax cusub ma hadda waxaad moodaa laakiin inay aad u doonayaan oo aad xamaasad leh si ka duwan sidii hore ay u doonayaan kadib markay sidaa Cabdiraxmaan ka sheekeeyay ay Soomaaliya iyo xeebihii iyo meelaha ay tageen hami badan baa soo galay laakiin wali waa gacan uur ku jirta waa hadday doonayaan inay
iyadoo ayna xallin qadiyadan si siyaasi lagu xallin ama si kama dambaysi loo xallin oo shucuubta Itoobiya ee ka mid ah shacabka Soomaaliya oo ayna helin xaqooda halka laga gaadheen soo saaridda shidaalkaas aad iyo aad bay u adkaanaysaa waxaa jirtay dad badan oo reer galbeed oo Itoobiya baryahan dambe xiriirkeedu ayna soo fiicnaanin sida dadkii deeqaha siinayay Itoobiya inay laba dhanlaysay oo quwadaha adduunka ku loolamaya mid walba ay wax ugu sheegayso dhan kala socotaa yaa dadku aad hadda u saadaalinaya ka ururahan quwadahaas siyaasadda ma u bandhigteen maadaama waxa meesha Itoobiya ku haya ay iyaga yihiin dowladaha waaweyn danay leeyihiin danahoodana iyaga u madax bannaan dowladda Itoobiya aan ka sheekeynayna xiriir bay leedahay diblomaasiya siyaasi leedahay dunida ka anagu ma saameyn kuma yeelan karo ma dhigi karo hala yeelan xiriir way leeyihiin laakiin waxaa xaq ah waan sheegaynaa inaan u sheegno anagoo adeegsanayna kanaalada channelska diblomaasiga inaan sawir xaq ah oo dhab ah oon been ku dhisnayn u sheegno oon gaadhsiino oonu ayna noqonin uun meel mugdi ah way ku dadaalaysaa journalist way u diiday waad ogtihiin ogaadeenaya ma tago journaal waa meel xidhan waa meel oodan waa meel aan loo ogolayn in waxba laga sheego marka way helaan kaalmo kama inay goyn dowladda weyn kaalmada sida carabkaaga yaro sheegay kaalmada dowladda Itoobiya way heshaa waxaa loo arkaa dowlad weyn oo geeskaa joogto ciidan badan loo adeegsanayo inay xaqiijiso danaha walbahaarka ka haya dowladaha waaweyn danahooda ayay u adeegsanayaan laakiin waxaa soo muuqda dowlad haba weynaatee dulmi ku dhisan shacabkeeda iyadu dulminaysa isku hadlaynta ay isku hadlayaan quwadaha waaweyn ay leeyihiin danaheennaba inoo qabanayaan waa wax xorshash hoosta ka ah oo aan laga gaadhayn si sugan hamigii laga lahaa mudane Cabdiraxmaan Itoobiya waxay sheegtay inay onolf dib wada hadalka u furto oo sida nagu maqaalo ama suuqa ku jirta ma la oran karaa awoodii Itoobiya xisbiyadan isbahaysiga cusub ee hadda gilgilay iyo gudaheedii oo dab ka kacayo khiyaano inay ka wadato hadda wada hadalkan cusub Allah fasiran markaad wada hadal galayso waxaad mar walba ka duulaysaa dhinac kalena inuu daacad ka yahay marka ilaa wax ka duwan aan ka aragno annagu hadda inaan sii saadaalin maana khiyaano ka wada tahay wada hadal kama saacidaysa marka arrintaa iyada waxaa weyn annaga waxaa noo yaalla annagu wada hadalka si niyad baanu galaynaa ayadana saasaa laga sugayaa hadday badda jana ficilka ka yimaado bay qaadanaysaa marka saas insha Allah generaal ugu dambeyntii maxaa dadka Soomaalida ogaadeynaya iyo dadka Soomaaliyeed aad ugu baaqaysaa ee ka daawanaya Qoraxay Media maxaad codkaaga ku gaarsiinaysaa waa su'aal aad iyo aad muhiim u ah أولاً شعبي Soomaalida ogaadeynaya waxaan leenahay rafaad iyo dul wasaar mugdi oo dhan iftiin baa ka dambeeya wax walba wanaag haddii la dadaalo ummadii dadaasha ee si mintal u daba joogto danteeda way gaadhaan rafaadka iyo daalka inaga muuqdo iyo waxyeelada faraha badan ee wajiyada badan ee shacabka gaadhay maaha intaan hayin ku noqon in moraalkii iyo qiyamka inaga dhammaadaan oo dardartii iyo hamigeen aan ka leexan shacabka saasaan ku leenahay waxaan shacabka ka codsanaynaa oo aan ku boorinaynaa in maalmihii iyagaaba ilaahay soo yaraanay ilaahay wuxuu leeyahay inna maca alcusri yusra bacda acuudu billahi min shari inna maca alcusri ma suuroodo inuu cusr uu iska socdo imtixaanka intiisii badnayd waan soo dhaafnay guushii waqtigeedii baa la gaadhay adkaysi iyo resilience yani inaan sii xoojino yaan shacabka ku boorinaynaa shacabka iyo awoodihiisa wax iska caabinta labadaba iyagoo isku duuban waxaan ku boorinaynaa inay si mintada ugu dhagaanaadaan dantooda iyo dabajooga dantooda taa waa midda shacabka Soomaalida ee jamhuuriyadda Soomaalida waxaan ilaahay u rajaynaynaa in uu haleelsiiyo talada saxa ah ee ah inay qaran Soomaalida oo madax bannaan lugaha ugu istaajiyaan isla markaana indhaha u arkaan danaha inay ka boodaan danaha shakhsiga ee ku dhisan qabiil iyo waxyaalo aan la garanayn iyo adeegid wada shisheeyo oo danihii Soomaalida caydkay inay intay ka bogsadaan oo qalbiga ilaahay isu duubo ay gaadhaan inay dib u yeelaan dadaalkii ay u jiraan ilaahayna ku guuleeyo dadaalkaas dana lagu haleeyay dowlad shisheeye waxba laguma gaadhay
mudane cabdiraxmaan sheekh maadi dadka Soomaaliyeed ee ka daawanaya qoraxay media maxaad kula dardaarmi lahayd ugu dambeyntii ummadaan midaysnayn horumar ma gaadho xorriyad ma gaadho wanaag ma gaadho dhammaan shacabkayga Soomaalida ogaadaya macal kuwa maamulka Itoobiya hadda la shaqeynaya wiilashayda qoryaha loo dhiibay dadkayga dhibaatada ku haya kuwa damac ka galay xagga inay aadaan kuwa halgamaya kuwa iska dhexaadka waxaas oo ku jirin waxaan wada leeyahay dhammaan waqtiga waxa la soo gaaray aan dib u tashan lahayn danteena aan soo wada jeesan lahayn shacab ahaan codkeenu markuu dhinac wada jiro ayaan codkeena goosan karnaa marka ummadeena kulli midnimo aan ugu baaqaynaa kuwii naga sii jeedina ilaahay soo jeediyo xumaantii naga dhaxaysana ilaahay baan ka baryaynaa inuu dhaqo dhammaan shacabka Soomaaliya ogaadaya midnimo aan ugu baaqaynaa yar iyo waayeel wuxuu rabaa ha aaminsanaado jabhadu waxay ku baaqaysaa hal la midoobo waqtiga la midoobo lahaa baa la joogaa wixii xumaan oo dhacay hawlaha xagga dambaan marino aan dhammaanteen dhinac u soo wada jeesano sidoo kale ummadda Soomaaliyeed qabiil meel laguma gaaro gobolaysi meel laguma gaaro hunguri shakhsi iyo iimaan darro meel laguma gaaro ilaahay ha idin tuso qarannimadu qiimaha ay leedahay qaran baa tihiin dawlad baa leedihiin calan baa leedihiin shakhsi un baa maamuli lahaa marka idinkana waxaan idin rajaynaynaa ilaahay inuu wahabka idinka qaado oo qarannimadiina shartiina soo ceshataan walaalihiin baan nahay annagana waxaa weeyaan markaad wax noqotaan wax noqonaynaa aad waxna tari kartaan annaguna aan wax idin tari karnaa ilaahay ummadda Soomaaliyeed oo wada mida oo wada xora oo geeska Afrika haybadda ay kula soo ceshatay ilaahay na tuso assalaamu calaykum daawadayaal halkan waxaad kala socoteen waraysi aan si wada jira uga qaadnay madaxa sare ee jabhadda wadaniga xoreynta Ogaadeniya mudane Generaal Cabdullaahi Mukhtaar iyo mudane cabdiraxmaan sheekh mahdi maadi oo ah hoggaanka arrimaha dibadda ee jabhadda wadaniga xoreynta Ogaadeniya waraysiga waxaa idinla socodsiinaysay aniga oo ah Iqranuun Maxamed xagga farsamada iyo kaameradana waxaa mudane Cabdullaahi أدي أدبر مهتم الماء إلا ما حرم ولا ولقداية أي شيء أدقل شيء اللي يبدولين إرمانا فيان عند ذا فلا غزارين يهديون مغنقل واردل ماء إلى نايني قفنا مرقل وعيان حماية إلهي سيابوس كذا الدين تواغذوذا أي ذا يوحيين الرمين أروركا وياني كو أي ذا وحاكو إلهزان أروركا وياني